subscribe noo saar waa dhiirigelin kusoo dhawo muuqaalkeeni. Waa sheekadii horarka ahayd qaybta koowaad. Maalin anigoo joogo iskoolka ayaan saaxiibkay ii imaaday, wuxuuna tusay sawir uu jooreeyay oo qurux badan. runtii zaid ayaan markaas aniga ooga helay, waana jeclaystay. Kadibna waa iskaga tagay anigoo markaas ka qaatay buuggiisii. Kadibna waxaan aaday xaafadeydii anoo sariirta ku fadhiyo oo buugga daawanayo ayuu caajis i qabtay. Kadibna waan seexday. runtii xoogaha markaan jiifo oo hurdadii isii baxday ayaan soo xasuustay inaana buugga laabin. Kadibna buugga ayaa isku laabay. Kadibna waxaan jeclaystay inaan seexdo, waxayna ahayd 4 saac habeenimo. Markaas kadib hurdo fiican ayaan ii qabatay, waana iska seexday si hurdada igu macaanaato. Xoogaha markaan jiifo ayaan waxaan ku riyooday naxdin aad u xun. Kadibna waxaan arkay anigoo markaasi qof iga kor baxayo aniga. Kadibna riyo ayay noqotay. Anigoo cabaar markaasi riyada xataa ku jira ayaan waxaan arkay qof agteeda taagan oo guduud badan oo zaid u weyn. Kadibna xoogaha markaan joogo guriga nooc kale ayuu la noqday. Albaabka ayaan kasoo bixiyay madaxa albaabka inuu i celinayn markaa ogaaday. Kadibna waxaan jeclaystay inaan hore usii galaa qolalka kale. Guryaha iyo muraayadahana waxay la noqdeen waaweyn hor. Kadibna waan ka dhex baxay albaabka anigoo markaasi albaabku i celinayn. Jaranjarada ayaan waxaa uga soo degay anigoo biibayo oo xoogaha dhulkana. Kadib xawaare sare ayaa markaasi ku socday, anigana waa faraxsanaa. Cabaar markaan socday ayaan waxaan galay qolka kore ayaan rabay inaan soo fiiriyo. runtii qolka kore markaan madaxa saa usoo bixiyay ayaa waxaan arkay bahal weyn oo bini'aadan u eg oo seena leh. Kadibna wejiga bini'aadanka iyo madaxa bini'aadanka oo kale leh oo zaid u sii joodo. runtii aniga markaas waa baqay, seentiisana zaid ayay u dheereed. Aniga markaas waan baqay. Kadibna aniga ayuu wuxuu yidhi wariyoo. Kadibna waan baqay, wuxuu yidhi waa kuu soo socdo. Aniga markaas waan qayliyay, waan naxay. runtii nooc kale ayaan noqday. Markaas kadib waan dhuuntay, meeshii ayaan ku laabtay, riyadii ayaan ka baxay anigoo markaas naxdin badan la cabsanaya. Kadibna waan soo kacay. Kadib naxdintii ayaa markaas waxaan ogaaday inay riyo ahayd. Waxayna ahayd 1 saac iyo bar maalinimo subaxii. Kadibna waxaan ogaaday inuu riyada ay ku jireen waxaas. Kusoo dhawaada sheekadeen labaad ee horarka ah. Maalin waxaan joognay meelaha laga adeegto sida dukaan, ani iyo hooyaday iyo walaashay iga yar. runtii walaashay zaid ayay u mashquulsanayd markaas. walaashay waxaan dhahay oo alaabtan qaado. Kadibna ayada meel ayay fiirinaysay. gaariga ayaan soo raacnay, wayna aamusneed. Kadib waxay dhahday moobeelkaadii ii dhib aas kaga ciyaaray. anigana markaas waan siiyay moobeelkayga ayadoo ku ciyaarayso. yaa runtii la yaab igu noqotay waxay moobeelkayga qaadatay. aniga hooyadayna xaafadda ayaa u soconay markaas. laakiinse gabadha nooc kale ayay noqotay. muraayadda ayaan ka fiiriyay. markiiba ila hadashay, wax naxdin la ayay igula hadashay. kadibna indhaheedii nooc kale ayay noqdeen, madow ayay noqdeen. aniga markaas way ii qosashay, waa indilayaa idma deynayo. kadib aniga waan naxay, dhidid ayaa iga soo daatay. hooyana way naxsaneed, waxay la yaabaneed gabadhii waxa ku dhacay, sidii isku bedeshay. aniga markaas muraayadda ayay ka fiirinayn aniga hooyo. runtii muraayadana wax dhaqdhaqaaq ayaan ka arkayna ayada ka muuqdo. zaid ayaan markaas u baqnay. waa indilayaa idma deynayo. caawa way in dhamaatay idma deynayo. markaas waan naxan aniga hooyaday. zaid ayaan markaas u cabsanay. markaas way qaylisay waaw. ayada markaas qof waalan camal ayay u dhaqmaysay. runtii aniga markaas waan naxay. waxaan arkay gabadhii moobeelka fiirinaysa xilli kasta. hooyo xataa lama hadlin. guriga marka la imaaday orod ayaan ugu dhaaftay. hooyo waxaan ku dhahay, hooyo gabadha maxaa ku dhacay, sidee isku bedeshay? markaas guriga ayaan albaabka ka fiirinay qolkeedii. moobeelka ayay ku mashquulsanayd. aniga markaas naxdin ayaan dareemayay, ilana way iga socotay. kadib hooyo ayaa u tagay, waxaana dhahay gabadhii maxaa helay oo ku dhacay? aniga waa naxsanay. gabadha runtii waxyaala cabsi ayay sheegaysay.
markaas aniga ayayna soo fiirinaysa qolka kore ayaan ku jirnay wayna dhegaysanaysay indhaheeda gudud ayay ahaayeen markaas cabsi badan ayaan dareemaya wayna hadashay caawa in dhamaatay ilma deenaayo markaasi waa naxnay hooyadii zaaid ayay markaas usii baqday kadibna hooyadii waxaan ku dhahay hooyana kaci gabadha u tagnay oon soo aragnay wasay tahay kadibna waxay tidhi gabadhaydii uma tagaynay naga daa laakiin markii waa u tagnay markaan u tagnay albaabka afurnay runtii waa la hadalnay waxaan dhahnay maxaa kaa qaldan adiga yaa maxaa la qeylqeyladaysaa ku helay runtii telefoonka ayay tuurtay way fadhiisatay indhaheeduna gudud ayay ahaayeen markaas ana markaas waa cabsaday kadib gabadha anigana lama hadlayninbo markaas kadib hooyadii naxsan ayaa waxay tiri gabadhayda maxaa ku helay oo kugu dhacay kadibna aniga waxaan dhahay aniga ayaa kula ciyaaraya markasta kadibna way aamustay oo qof jiifa ayay u ekaatay ana markaas waa naxnay maalinka xigta alaab ayaan usoo gadnay bombale